lidinku diidaya hadku daadaiigo anigoo dagaalamaya dhulkayada uma ujiidan oo lidinku diriraya hadku daadaiigo موجودا أولي بالكفرية حتى جاءتكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور دواد مركلة يبرهنش كي دلجر وهذا نكرة كداوتان مقالبة هي قرنك أما التلفزيون كقرنك داود البرهنش كي ندلجر نكري ماذا أنت سبضا حروت الدحاء المقالبة هي قرنك المقالة المكشوف داود الهدي تطبات كي هراء برهنش كي ندلجر عن بقشة كتبني xarunta aqoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed toddobaadkan waxaan booqasho ku soo gaaray oo aan soo booqday dugsiga tababarka Sarreeyagaas Cabdikariin Aadan Yuusuf daga badan Allah u naxariistee oo kamid ah dugsiyada lagu tababaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed toddobaadkan barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa dugsigan loogu magacdaray Allah u naxariistee Sarreeyagaas Cabdikariin daga badan Allah u naxariistee oo dugsigan loogu magacdaray dugsigan wuxuu kamid yahay dugsiyada cusub tan iyo markii dowladnimada Soomaaliya ay dib u soo kabatay dalka laga furay iyadoo markaa lagu saleynayo hadba markaa duruufihii ku xeernaa dalka iyadoo aan ka warqabno in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ku lahaa dugsiyo aad u tiro badan oo ciidamada lagu tababari jiray oo kamid ah dugsiga tababarka ee Dhanaane Hiirweyne Xalane iyo weliba dugsiyo kale oo farsamooyinka ama qaybaha kala duwan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu kala baxo tababaridiisa kala duwan hadday ahaaneen ciidanka lugta hadday ahaaneen ciidanka kale difaaca cirka ciidanka cirka ciidanka badda iyo weliba hubka kala duwan xubnaha loo tababarayo haddaba daawada toddobaadkan barnaamijkeena waxaa markii igu ah oo dugsiga tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee loogu magacdaray Sarreeyagaas Cabdikariin daga badan halkaasi ugu soo dhaweeyay oo aad aan ugu mahadcelinayaa taliyaha dugsigaasi Sarreeye Guuto Maxamed Maxamuud Sani oo toddobaadkan barnaamijkeena marti igu ah ugu horreyn taliya horta ku soo dhawow waana kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta aad toddobaadkan ugu soo dhaweysay dugsigan Jeneraal daga badan barnaamijka daljir iyo telefishinka qaranka ku soo dhawow su'aasha ugu horeysa waxay tahay ugu horreyn bal waxaad noo sharaxdaa bal dugsigan loogu magacdaray Allah u naxariistee Sarreeyagaas Cabdikariin daga badan bal taariikhdiisii xilliga la asaasay iyo heerarka uu soo maray بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد marka ugu horeysa waxaan idinkaaga mahadcelinaa idaacadda qaranka iyo barnaamijka daljir ee soo booqda maanteeto aad iyo aad ayaan idinkaaga mahadcelinaa marka labaad waxa waaye taariikhda dugsiga Jeneraal daga badan Cabdikariin Yuusuf daga badan Allah u naxariistee wuxuu ahaa nin halyaa oo ka soo qaatay qayb weyn halgankii lagula jiray nimankii nabadiidka ahaa qayb weynna ka soo qaatay jannada firdowsa allaha mataqaanaa geliye insha Allah taala Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u waasiciyo waa nin taariikh ku lahaa dalka Soomaaliya aad iyo aadna aan isla soo halganay
mana iloobi doono wixii uu soo qabtay iyo taariikhdiisa mid la iloobi karo maahan. haddii waan ka sheekaynayna aan idhaahdana waxay noqon doontaa in ay waqti dheer ay qaadato, ma ahan mid la soo koobi karo ama intaan yartaa lagu soo koobi karo. midda kaleeto dugsigan waxaa la asaasay 2010 madaxweynaha markuu ahaa Sheekh Shariif ayaa la asaasay, prime ministerna uu ahaa madaxweynaha hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida run ahaantaa waxaa waaye taariikh dheer ayuu leeyahay. madaxweynaha Sheekh Shariif markuu ahaa ayaa la furay dugsigan. waxaa lagu aasaasay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee hore ayaa meesha lagu aasaasay. waxaa waaye ra'iisul wasaarena waxaa ahaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ah. taariikh dheer ayuuna mataqaanaa uu ka soo qayb qaatay isaga oo howl badan ka soo qabtay dugsigan iyo sidii uu u hirgeli lahaa. marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanteeto isaga oo madaxweyne ah in uu dhowr jeer na soo booqday aad iyo aadna mataqaanaa uu tixgelinayo dugsigan taariikhda uu leeyahay iyo wax walbeeto. okay tani markii laga soo tago dugsiga 2010 maadaama la furay xilligaasoo madaxweyne Sheekh Shariif uu madaxweyne dalka kaasida sheegtay, markaas xilliga la furayay magac maxaa loogu magac daray? waxaa loogu magac daray markaasi General Dhagabadan waa noolaa, allaha u naxariistee. marka waxaa la dhihi jiray dugsiga Nanaca ee Jaziira ayaa loogu magac daray. okay waa dhamatay. marka 2010 waa ka warqabnaa magaalada Muqdisho xilligaas sida ay ahayd. waa xilligii ugu badnaa dagaalkii ugu xooganaa magaalada uu ka socday oo kooxaha nabadiidka lagu qaaday. marka xilliga dugsigan la furayay marka baahida jirtay ma leeslaha marka dugsigan oo dhinaca tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma looga bixi karaa marka kaalintee ayuu ka soo qaatay marka dagaalkii marka magaalada Muqdisho looga xoreeyay kooxahaas? dugsigani wuxuu ka soo qaatay kaalin aad u ballaaran. waxaa lagu diyaariyey ciidamadii oo ka howlgalayay magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. waxaana waaye taariikh dheer ayay ku lahaayeen sida ay hawsha u qabteen ama mataqaanaa nimankii nabadiidka oo isbidaya awood ayay jabiyeen, awoodooda ay isbidayeen. marka dugsiga wuxuu ahaa mid lagu faa'iiday waqtigaasi ama tababarkii lagu qaatay ama ururiska ciidanka lagu ururiyey ama howlgalkii lagu galay waa mid lagu guuleystay ayuu ahaa. okay waxaan ka warqabnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1960 bishii Abriil 12 wuxuuna noqday ciidan aad iyo aad xuduudiisa ay u kortay. wuxuu lahaa dalka oo dhan 18 gobol oo ku lahaa dugsiyo badan oo tababar. marka maadaama magaalada Muqdisho xilligaas dugsiyo kale ay ku yaaleen dayactir iyo waxay u baahnayeen in duulfaha jira marka laga soo tago. dugsiyadii hore qaab ayay u jireen oo ciidan marka askari marka la rabo xubin cusub in la tababaro wax baahida jirta imkaaniyaadka u baahan waxaasoo dhan. marka iyadoo taa laga duulayo maadaama aad ka mid tahay saraakiishii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee weliba kuleedihii kala duwanaana soo maray ciidamada aqoontooda lagu soo baranayo, dugsigani marka ma buuxin karaa kaalimihii ama baahida tababar ee ciidanka hadda jirtaahi? macnaha dugsi ka turjumi karaa ma yahay oo askariga ka soo baxay ma yahay askari la mid ah askartii hore? marka ugu horeysa waxaa waaye waagii horeeto dugsiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u badnaayeen. waxaana waaye waxaa lagu qaadan jiray maadooyinka hadda inta lagu qaato ayaa iyagana lagu qaadan jiray, laakiin waxay kaga duwanaayeen markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed voluntary ama mataqaanaa waxay ahayd waxaa lagu soo qori jiray qofka in mataqaanaa waxaa la dhihi jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay askari nin noqdo. waxaa lagu soo qaadan jiray sifooyinka oo ah ninka saf ayaa la geli jiray
meelaa laisugu keeni jira goobtaas ayaa waxaan ku leeyahay saraakiil ama khubaro ah ayaa loo soo diri jiray iyadoo la fiirinayo ninka dhirirkiisa, caafimaadkiisa, xooggiisa iyo habka oo u dhisan yahay jirkiisa ayaa lagu qaadan jiray. waxa waaye hadda maanta waxa waaye ciidanka voluntarya loo soo galo hayaa, qofkii raba ayaa soo galaya. marka sifooyinkii hore lagu dooro jiray mataqaanaa hadda naftirkeeda waxaa lagama maarmaan ah in la soo celiyo, la fiiriyo qofka mataqaanaa jirkiisa ama dhismihiisa ama xooggiisa ama akhlaaqdiisa ama maxaan ku idhahdaa physical siduu u dhisan yahay iyo wax walbeeto in la fiiriyo waa lagama maarmaan. hadda maanteeto waxaa bilaabatay isbeddel kaleeto. berigi horeeto waxay ahaaday nin allaala ninkii oo ciidanaan rabaa yidhaahdo ayaa iska soo gelaya. hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aqoon iyo waxqabad iyo maxaan ku idhahdaa akhlaaq iyo awoodda qofka wax walbeeta ayaa lagu qaadan doonaa. waxaa ku xigtoo kaleeto in akhlaaqdi oo xumeed wixii ku jirana nimanka akhlaaqda xun leh oo dhan in laga wada saarayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. okay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama militariga wuxuu leeyahay qaab dhaqan ka duwan ee ciidamada qalabka sida ayuu lahaa. oo matala hadda markaan taariikh dib ugu laabto xilliga gurmadka aniga aan soo marnay ardayda dugsiga sare dalka ka baxay nidaam waxaa dowladii gacanta u dejisay inuu 2 sano tababar military soo maro. halku dhigidii la yaabka lahaa ee aan xirooyinka militariga ku arki jiray waxaa ka mid ahay dhaqaaqin hadday abayso ku cunayso. الله نحرسته معلمينتي هكذا كده سألك سجل وحكمت هاي كركدي وحكمت هاي على عطوش نكجر سمبلوش وأنا حتى بحالنا معلمين يقول أها ما أنت مركع في السوق دتكو وكدوية جيل أهاني قدويين وحي قدويين معناها دبعات أهاني قدويين كرش أهاني قدويين ما أنت مركع في السوق مركع sidee sharciga tababarka hadda macnaha ninka dhalinta yar ee Soomaaliga ahi oo aan ognahay inuu dagaal ku soo koray nidaam dawladeed aqoon iskuul aan waxba soo marin sidee balbar sharciyadaas adeega badnaa sidee loo marsiya oo loo macnaha loo baraa. bismillaah marka ugu horeyso horta waxa waaye tababar waa tababar ama ha ahaado mid horeeto ama midka hadda socdo. waxa waaye tababar waa un tababar sababta oo ah haba yaraatee wax laga yaraynayo ma jira tababar qofka hadduu jadiid yahay iyo hadduu dable yahay iyo haddii uu maxaan ku idhahdaa dable jadiid yahay iyo haddii uu yahay maxaan ku idhahdaa nin tababaran ciidanka ah tababar la soo geliyay. waxa waaye sidii ayaa loola dhaqmaa waxaana lagama maarmaan ciidanka halka ka soo baxa meeshan ka soo baxay waa ciidan adkaysi badan dulqaad badan maxaan ku idhahdaa discipline fiican waxaasoo dhan waa la wada baraa iyo waxaa la baraa oo kaleeto xuquuqda insaanka waxaa la baraa oo kaleeto xuquuqul insaanka. marka waxa waaye waxaa lagama maarmaan ama xuquuqda ama waxaa la baraa xeerka ciqaabta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. intaasoo dhan ayagoo loo wada akhrinayo oo la wada baraayo ay diyaar u yihiin waxay ka soo baxaan dugsiga oo adkaysi iyo wax walba iyo howl walba loo diro niman qabanayo inay yihiin. waana lagu guulaysan doonaa insha allahu tacaala waxaana la arki doonaa marka ay mataqaanaa howlgalka ay galaan ayaa laga arki doonaa insha allah. dhinaca kale markaan fiirino taliya in askari cusub hadda la soo tababaro akhlaaq ahaan aqoontii dagaalka shuruucda waxaas in la baraahi hawl yar oo fudud ma aha. waxaa jira dalal badan oo Soomaaliya ka caawiya inay macnaha ciidamo dhalinyarada dibadda inta loo qaado uu soo tababaro. marka dugsiga maadaama uu saldhig u yahay oo dugsiyadii 2010 markaas baahi ciidan ay dawladda ay qabtay xilligaa la aasaasay yaa macallimiinka ah oo tababarka ka bixiya. waxaa waaye macallimiinta waa kala duwan yihiin
macallimiin soomaaliyeed ayaa horta number 1 ayaa mudnaanta koowaad leh. waxaa ku xigo macallimiin oo waxaa jiro dalalka aan saaxiibada nahay sida dalka Uganda ayagana ay joogaan oo meesha ay tababar ka bixiyaan. waxaa ku xigo macallimiin oo ah nimanka markaati Common Europe ama midowga Yurub macallimiin ayaa duruus ka bixiyaan ayagana oo si ay maxaan ku iraahdaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qayb weyn uga qaataan tababarna ka siiyo kana caawino maxaan ku iraahdaa waxyaabaha badan ciidanka ay u baahan yihiin. dugsigan maadaama hadda 2010 oo macnaha 8 jirsaday oo sanadkiisa 8 hadda uu socdo mise ayaa ka qalin jebisay oo macnaha oo soo martay oo dufcadood ama kooxood waxa waaye marka ugu horeyso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dufcadihii soo maray wax la koobi karo ma aha sababta oo ah dufcooyinka waa kala duwan yihiin. qaar waa crash oo degdeg ayaa mataqaanaa wax loo baraa, qaarna waxa waaye tababar dheer ayay galayaan ilaa 3 bilood, qaar 6 bilood, qaar sanad ay ku jirayaan. marka inta dafcadoodoo soo maray wax la koobi karo ma ahan. intooda waxa waaye qayba si ayaa mataqaanaa waxay ku xiran tahay xaaladda markaas jirto ama baahida markaa jirto ayay ku xiran tahay. dhinaca kale waxaa jirta markii tababar noocaas oo kale ay ciidamadu ay galayaan waxaa jirtay ciidamadu magacyo ay lahaayeen oo matalan magacyada waxaa u badnaa cali jiil cali booday cali saasa lahaa jiray. marka bal inta adigu hadda aad goobjoog aad u tahay maadaama saraakiishii hore ee ciidanka aad ka mid tahay ma jiraan bal magacyadii ama naanaysihii ama hakudhegyadii noocaas oo kale ahaay oo caanka ay ku ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed? magacyadii horeeto weli lama iloobin waa la hayaa oo sababta oo ah ciidanka qaar ka mid ahaa loo bixiyaa. hadda waxaa waaye inta koorsooyinkan ka wada baxay waxaa ka mid magacyada loo bixi jiray birjaax, waxaa ka mid daljir, waxaa ka mid libsida magacyo oo kulli oo sidaas oo kaleeta ah. marka sida la ajligeedo intaas oo dhan waxay wada ahaayeen magacyadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu yaqiinay ee horeeto ee taariikhda ku lahaa. marka si loo xuso ama magacyadaas si aan loo iloobin ayaa tababarka cusub ama ciidanka cusubba magacyadaas si ayna u iloobin ayaa loo bixiyaa. haddana waxa waaye taariikhda ay lahaayeen ama xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhda uu ka soo qaato dalka Soomaaliya waa looga sheekeeyaa taariikhdii la soo qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo processka ama maxaan ku iraahdaa waqtiyada kala duwan ay soo mareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdiisoo dhan ayaa looga sheekeeyaa. marka ciidanka inta ka baxayo waa ciidan maskaxiyan u dhisan iyo maxaan ku iraahdaa ayagoo taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhammaystiran haysto ayay halka ka baxaan. waxaana rajayn doonaa insha Allah taala in ay noqdaan miisaal ama ay noqdaan dad lagu daydo goobaha dagaalkana markay tagaan taariikh weyn ka soo hooyo insha Allah taala. dhinaca kale taliye waxaad ii sheegtay in macallimiinta halkan ka howlgalay ay dhowr qayb ka yihiin Soomaali, macallimiin ka socda dalkan aan saaxiibanahay oo Uganda iyo waliba ururka midowga Yurub oo aan ognahay oo iyagu usoo diray Soomaaliya saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyagu macallimiina oo xirada tababarka bixiya. anaha marka aad fiiriso askariga Soomaaliyeed ee hadda halkan tababar u soo galay marka laga saaro layli sarkaalka marka laga saaro inta kale oo jadiidka ah oo dablanimada ka soo bilaabay waa ognahay maanta luqad ahaan sida ay yihiin. macnaha marka sidee isu kaabayaan 3 qaybood oo macallimiin kala duwan in macnaha wiil dhalinyaro ah oo 18 jir ama 20 jir ah oo weli aan iskuul tagin luqadahaas kala duwan ee lagu hadlayahay macnaha tababarkii la rabay ama heerkii laga rabay marka qofkaasi ma lagu kalsoonaan karaa
maxaase diida in soomaaliya keliya lagu koobo maadaama soomaaliya hadda aysan dowladnimad qaadan ay joogaan dadkii aqoonta lahaa oo tababarka bixin jiray? bismillaah, waxaa waaye marka ugu horeyso intaa macalimiin soomaali ah iyo dowladahan kaleeto oo aan saaxiibadanahay naga caawinayo, waxaa waaye marka ugu horeyso ayaga kaligood galaaska inay istaagaan dadkan oo aan aqoonta ama afka luqadda aqoonin maxaan ku idhahdaa ma u akhriyaan ama mataqaanaa baraatikada marka la siinayo. waxaa joogo niman ka caawiyo oo turjubaano ah oo maxaan ku idhahdaa aad iyo aad ugu kaalmaynayo afka ay ku hadlayaan dadkaasi af soomaali ugu bedelo si ay ugu sahlanaato afka hooyo ay ugu bartaan duruusta iyo wax walbeeto. annagana ka saraakiil ahaan waxa waaye waxaan siinaa duruus oo ah muraajaca ama ku noqosho ah oo duruusi la soo siiyey iyadoo af soomaali ah ayaan u sharaxnaa. marka baraatikada markay qaadanayaanna af soomaali ayaan ugu fulinaa oo waa tusinaa habka mataqaanaa ay ugu fududdahay iyo sida ay mataqaanaa luqadii ay nimankaasi u turjumeen ama darsiga wuxuu ku saabsanaya ayaan u fududaynaa. af soomaali fiican iyo luqad ciidan ayaan mataqaanaa ku tababarnaa. qofka markuu cusub yahay oo tababarka uu gelayo wuxuu la kulmayaa xaalado kala duwan. maanta soomaaliya waa ka warqabnaa, waxa ka yimid isbedelo badan ayaa ku dhacay dhallinyaradii. sababaha laga dhexlay dagaalada ayay ka mid tahay. matala marka aan soo qaadano bahalka la yidhaahdo qaadka ayaa aad maanta dhallinyaradii soomaaliyeed farabacan ku haya. wayna adagta kulley fikriyan askari xero tababar ku jirahay inuu haddana qaad cuno ama ku jira xaalad dagaal ama markaas shaqo gacanta ku haya. ka dugsi ahaan idinku markaa ma jiraan waxyaabo oo ninkan dhallinyarada ah nin yar intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaaldahay, ma jiraan waxyaabo oo nidaam ah oo u gooni ah oo matalan intuu tababarku ku jiro waxyaabahaas inuusan samayn, waxaas inuusan samayn, waxaas inuusan samayn, qodobo u gooni oo dhinaca anshaxa oo qofkaani si berri hawsha loo duri doono loogu aamino? bismillaahi, waxa waaye horta su-aashaas waa su-aal muhiim ah waana lagama maarmaan. waxaana waaye aas-aaska mataqaanaa aqoonta ama aas-aaska nolosha ee askariga dhabta ah ayay mataqaanaa ku salaysan tahay. askariga waxaa ka mamnuuca inuu xashiish cabo, waxaa ka mamnuuca inuu caraq cabo, waxaa ka mamnuuca inuu jaad cuno, waxaa ka mamnuuca inuu meelaha balwadaha kaleeto ama caraqa iyo ama khamri iyo wax walbeeto maandooriyaalahoo dhan inuu isticmaalaa ka mamnuuca. ciidanka meesha ku jiro waxaa waaye marka ugu horeysaba hadda waxaa ku jiro ciidan oo lasoo xulayaa ku jiro. ciidankaas lasoo xulay sifooyinka lagu soo xulay ayaa waxay ka mid yihiin inuusan sakareed cabin, inuu jaad cunin, inuu khamro cabin, inuu xashiish cabin, inuu maxaan ku idhahdaa caraq cabin. waxyaabaha balwadoo dhan ninkaani inay balwad ka reeban tahay. sifooyinkaas ayaa lagu soo xireeyey. waana maxaan ku idhahdaa miithaalka ugu fiican hadda ama mataqaanaa dariiqa ugu fiican ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in uu qabsado wadadii dhabta aheyd ama wadadii caddeed. waxaa ku tusinayso doorashooyinka ama mataqaanaa qofka sifooyinka lagu qaadanayo ayaa ku tusinayo. waxa waaye hadda waxaa lagu arkay ciidankii meesha la keenay, waxaa lagu arkay 4 qofood oo qarqarsanayaan jaadka iyo sigaarka. isla markii waxaa noo joogo ciidanka macalimiinta ah oo ku dhex jiray iyo horjoogayaashii ayaa markhaati fureen. 4toodaba waa laga bixiyey xerada. marka waxay ku tusinaysaa in laga soo kabanayo maxaan ku idhahdaa mashruucii degdega ahaa ama baahidii maxaan ku idhahdaa wadcigii markaa jiray ciidanka loo tababaraya oo ah maxaan ku idhahdaa wadciga markaa jiro
qaar waxay qaadanayaan 2 bilood, qaar waxay qaadanayaan 3 bilood, qaar waxay qaadanayaan 6 bilood. marka insha Allah tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nidaamka wanaagsan taliyaha ciidanka iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha nidaamka ay hadda ku wadaan ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaana rajayn doonaa in mustaqbalka meel fiican oo wanaagsan ayay mataqaanaa ay gaari doonaan. waxayna noqon doonaan marka la soo wada ururiyo raggaasi oo balwadaha iyo waxa waxaa isbedeli doono goobaha dagaalka xilliga oo horeeto iyo xilliga cusub oo hadeertaan howlgallada la gelaya insha Allah tacaala. waxaa jira macnaha markaa dugsigan ciidamada ku soo xarooday maadaama Soomaaliya maanta aan ognahay nidaamkii hore ee dowladnimadeedu ku soo iyo midka maanta la aaday. marka xubnaha halkan la keenay ee lagu tababaraahi ma gobolada kala duwan ee dalka ayaa laga keenaa mise gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ayaa cidii macnaha rabta ayaa iska timaado oo macnaha oo maalinta uu jiro tababar ciidanka xoogga dalka soo ciidan la qaadanayo ayay sidaas ku soo galaan. bismillah. waxa waaye horta su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican sababta oo ah maskaxdayda ayay ku jirtay inaan arintaasi aan ka hadlo. waxa waaye ciidanka maanta meesha lagu soo xireynayo ma ahan ciidan hal gobol ka yimid ama hal deegaan ka yimid ama maxaan ku raadahay deegaanka muayyan ay ka yimideen. ciidankani waa ciidan isku dhaf ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamul goboleedyada dhanka wada yimid. waxaana waaye ciidankii ugu horeeyay oo hadda ka baxay sida ciidanka commandoska ciidan kale oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka horeeyay ayagana oo dufcad kale ta ahaayeen oo isku dhafka ciidanka ah ama integrationka sida loo yaqaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ciidanka hadda ka baxay oo ciidanka danab ah ama commandosta waxay ahaayeen ciidan oo isku dhaf ah oo inta gobol ah oo Soomaaliya ka wada yimaadeen. waxaana waaye miisaalka ugu horeeyay kuwa ka horeeyana waxay ahaayeen barjeexa la dhihi jira iyagana waxay ahaayeen ciidankii ka howlgalay meelo badan. waxay ahaayeen integrationkii ugu horeeyay ama isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda iyo wixii ka dambeeyo in aan hal degmo ama hal gobol ama hal maxaan ku raadahay aan laga qori doonin ay noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore oo loo aqooni jiray oo isku dhafka ciidanka ah oo maamul goboleedyada iyo meel walbeeta ay joogaan bal laga wada keeni doono ayagoo noqon doono gundhiga ama saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bilaaban doono insha Allah tacaala. marka intaas aan ka soo tagno maanta macnaha way aragnimadaada iyo inta dugsigan hadda suuq ugu sareeyay aad ka noqotay markii la isku daro wax waliba waxba lagu gaaraa. Soomaalidu waxay tiraahdaa wax yar wax badan lagu gaaraa. macnaha marka dugsiga loogu magac daray Allah naxariistay sareeya gaas Cabdikariim Aadan Yuusuf daga badan maanta 2010 ilaa hadda mislaadahay waa lagu najaxay oo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baahiyo badan uu u qabay dhinaca tababarka ciidanka waa uu uga soo gudbay oo maanta waa uu ku guuleystay. bismillah. waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababarkaani aad iyo aad ayay ugu guuleysteen. waxaana waaye maxaan ku iraahdaa wax badan ayay mataqaanaa ay qabteen sababta oo ah waaye aragnimada aan ka dhaxalna meeshan ama aan ku aragnay waxay tahay in ay soo kobcaysa ama ay mataqaanaa garaafada ama maxaan ku iraahdaa ay kor u kacayso dhisidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaga oo ku mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka iyo kulli iyo marka sida la ajilgeeda waxa waaye waxaan ku amaanaynaa processka ama dariiqa ay jeexeen oo ah sida habka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu wadi lahaa. waxaana ku taageersanahay in aan dhamayno insha Allah tacaala.
daawadayaal idoo xilligii barnaamijka uu gebageba noo maraa welina aad fiirsanaysaan ama aad daawanaysaan barnaamijkii daljir oo aad ka daawanaysaan muuqaalbaahiyaha qaranka. daawadayaal halkan waxaan ku hayaa shahaado sharaf oo sanaguuridii 66 ee kasoo wareegatay markii la asaasay raadiyo muqdisho la guddoonsiiyey allah u naxariistay sarreeyagaas cabdikariim yuusuf aadan dhigabadan oo lagu guulaystay xilligii uu abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ahaa kaalintii uu ka qaatay dagaaladii ka socday magaalada muqdisho looga saarayay kooxahaasi iyo weliba kaalintii uu raadiyo muqdisho inuu ku guulaystay inuu warar dhab ah oo xaqiiqa uu u gudbiyahay dhegeystayaashiisa iyo dhammaan Soomaalida ayaa halkan ku haynaa. shahaadadaasna waxaa la guddoonsiiyey sarreeyagaas cabdikariim dhigabadan waana raadiyo muqdisho waxaa ku saxiixan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta haddana ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yuriso. allah u naxariista ayaan leeyahay sarreeyagaas cabdikariim dhigabadan. ugu dambeyntii taliya markaa maxaa macnaha markaa maanta oo fariin ah oo aad u diraysaa maadaama aad ka mid tahay saraakiisha farakutiriska ee waaye aragga ah maantana nasiib aad u yeelatay in mas-uulka ugu sarreeya ee dugsiga tababarka sarreeyagaas janaan dhigabadan aad tahay maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda xubnaha ka ah ama kuwa raba inay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa fariin ah oo aad u diraysaa? bismillah waxa waaye marka ugu horeyso waxaan ka iloobay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dugsiga laguma tababaro kaliya ee askar waxa waaye leeyli saraakiisha dibadaha ka yimaado ayaa meeshaan tababar u galaan 45 casho waxaana waaye waxaan farayaa waxaan kula dardaarmaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama shacbiga Soomaaliyeed maanteeto waa maalmihii laga faa'iideysan lahaa aqoontii iyo waxgaradkii iyo waxbarashadii iyo wax walbeeto waxaan ku dhiirigelinaynaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay muraayada dalka aan laga maarmin in cid kasta oo Soomaali ah ay maalkeeda iyo dhiigeeda iyo aqoonteeda iyo wax walba inay ku kaalmayso sida la ajligeeda waxaan rajeynaa in rag badan oo waanadeyda ama taladeyda qaadan doono ay ku soo biiri doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin. kaasi wuxuu ahaa taliyaha dugsiga tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee sarreeyagaas cabdikariim yuusuf aadan dhigabadan. sarreeye guuto maxamed maxamuud sanay oo toddobaadkan marti igu ahaa barnaamijka daljir ee muuqaalbaahiyaha qaranka ama telefishinka qaranka. daawadayaal barnaamijkan barnaamij cilmiga intaan ku kulmi doono waa bahda iga gacan siisay barnaamijkan inuu suurto galo oo ugu horeeyo kaameramanka saaxiibkay ah kaameraman xasan iyo weliba farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameeyey waa farsamayaqaan Ramos. midkaan mid lamida intaan ku kulmi doono waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamij kale oo daljira sidaa iyo nabadgelyo. waa mahadsantaa boqolkiiba boqol. lidinku diidaya hadku daadadiidiyo anigoo dagaalamaya dhulkayada uma ujiidan oo lidinku diidaya hadku daadadiidiyo